maalmahan dambe waxaa socotay xan badan oo dadka lagu jahwareerinayay oo aan dareemayo dad aan fahmin ama dad dan leh inay aad uga shaqaynayeen oo ugu muhiimsan tahay dad badan oo oranaya canshuurtii dekedda Boosaaso kor loo qaaday waxaan rabaa maanta inaan u sheego dadka reer Puntland dawladda Puntland wax canshuur kordhina oo ay sameysay ma leh taa horta inay ogaadaan way canshuurta kordhinteedu process bay martaa miisaaniyadda dalka gashaa ogolaansho baarlamaan ay martaa marka aan aragno inay dan tahay canshuurta aan qaadno weli kuma filna adeegyada bulshadeenu u baahan tahay laakiin waxaan isla socodsiinaa baahida iyo duruufta markaa jirta iyo kobaca dhaqaalaha ee ganacsatada waxaa kaloo intaa dheer dekedda magaalada Boosaaso waxaad ogtihiin shirkad baa maalgelisay muddo badan ka shaqaynaysay qof walba uu qirayaa isbeddelka ku dhacay dekedeena waxaa kordhay jambiyadii ay ku soo xiran jireen maraakiibta waxaa la qoday kanaalkii maraakiibta waaweyn ay soo maraysay waxaa lagu wadaa dib casriyeyn iyo ballaarin joogto ah muddadaas hawshaas socotay waxaan shirkadda gacanta ku haysa mar walba ku codsan jirnay in ay marxaladaha aan adag ee aan ku jirno ay noogu dulqaataan intaas 7 sano aan joogay waxaan ka hortaagnayn in tareefka ahayd heshiiska lagula galay inaan la furin duruufo jira awgeed annagoo u yeexeynayna ganacsiga kobciisa annagoo eegayna ganacsatada inay culays badan saaran tahay muddooyinkaas faraha badan oo arrimahaas aan saas u lahayn waxaan eegaynay inay ganacsatadu arrimo badan oo gaar u ahaa inay ka soo doogaan dalkuna oo marxalad oo xambaari kara ay noqoto waxaan rabaa dadka inaan maanta u caddeeyo waxa la kordhiyey oo dadku sheegayaan horta canshuur ma ah waxa weeye khidmadaha laga qaado maraakiibta dalka badeecadaha keenta oo boqolkiiba 95 ama 96 ama 99 maraakiibtaasi ay leeyihiin dad ajnabi ah waxa Soomaalidu ay leedahay waa dhowr far ku tiris ah maraakiibtaas ganacsatada inay soo kireystaan oo ay lacagta ka qaata oo dalka badeecada keena dekedda u adeegaysa waxay u baahan tahay khidmad la mid ah khidmadaha dekedaha kale markay tagaan ay bixiyaan annagoo taa weliba xeerinayna maadaama dekedeenu ay cirf ku taal weli aan rabno in ay badeecadeen noqdaan badeecado tartan fiican geli kara waxaan muddo ka codsanayna inaan kor loo qaadin intii ay ugu timid ay ku hayso waxaan maanta la garanay marka loo fiiriyo dekedaha Soomaaliya inteeda kale iyo regionkaba wax aan la xusi karin iyagan u noqon kara dhiirigelin ay ku sii ballaariyaan inta u dhiman oo aan dhawaan rajaynayno dekedda guryihii ku xeernaayo dhan inuu isbeddel ka dhaco